السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا أصحابتي دمانتينا وحايدين وذا وربحين كسابسن ودنك كندا أو محلها يعني أباهن شقالوين 1 مليون كور أصيلا فايا سو مركب برنامج كان وكجري كندا لكن محلقيا والصومالي إنيسن أوجين أنا قدر جير أيام محلها برنامج كان سنة كهور حتى مقلي لكن يعني ما baraarugsaneyn inaan dadka la wadaago soo hadda waxaa idin la wadaagaya in aad fursadan ka faa'iideysataan fursadan waxay furmaysaa bisha soo socoto sanad kasta Canada waxay qaadataa shaqaalooyin ee ka qaadataa caalamka oo dhan laakiin dadka ugu badan oo arrintan ku baraarugsan waxaa waaye Carabta iyo wadamo Asia dadka ka soo jeeda iyo Afrika way ku yar yihiin u maleynaa dadka codsada fursadan oo kaleeto soo marka Soomaalidana kuma baraarugsana badanaa waxaa maqlaa group 5 iyo qaxooti labadaas shay bas inay maxallaha ay ku aadaan yani wadanka Canada laakiin fursadan way ka dugan tahay group 5 iyo qaxooti way ka dugan tahay waxa way fursad shaqaalanimo oo company uu ku qaadanayo laakiin passportka Soomaalida aniga kama warhayo in la aqbalayo in kaleeto kulley waa buuxsan kartiin sida loo buuxsado yani loo tirigo kaleeto camal leeyahay fursadan waa buuxsan kartiin marka buuxsatiina company-ga asaga idin soo jawaabayo oo wixii la idin ka rabo iyo wax kastaba maxallahay idin soo sheegayo warbixinta oo maxallahay company-ga iyo meesha laga helayana Google-ha ku qoraysaa company-yaasha oo shaqaalooyinka qaataan wadanka Canada iyo wadan allaala wadanka rabtid xitaa oo ku qori kartaa laakiin fursadan waa fursad hadda soo dhacday oo weligeedna jirtay sanadkii hal mar ay furantaa hadda waxa la sheegayaa bisha soo socotay inay furmayso fursadan shaqaalaha lagu dalbanayo yani company-yaasha ay ku soo dalbanayaan marka Soomaalida waxaan u rajaynayaa inay ka faa'iideystaan mid labaad dadka aadka ugu fududahay oo aniga aan isleeyahay waxa waaye dadka wadamada Yurub jooga maadaama maxallahay passport yani wadamo caalami ah haystaan way u fududahay Carabta passportdoodana badi yani adduunka waa laga aqoonsan yahay in yar ma ahanay soo marka passportka Soomaaliga ma ogi aniga in la aqbalayo in kaleeto laakiin insha Allah in la aqbalaa rajaynaya buuxsada fursadan idin dhaafin company-ga shaqa allaala shaqa yani shaqooyinka way kala dugan yihiin adiga dooranaysid company-yaal badan ku soo baxay hadii aad ku qortid maxallahay Google-ka soo marka meeshaas ka buuxsada fursadan ka faa'iideysta warbixinta kale ku saabsan maxallahay arrimaha qaxootiga iyo Canada maxallahay in ay ayada bishii soo socotay yani bishii la soo dhaafay ay joojisay group 5kii iyo qaxootiga laakiin ma joojinin laakiin group 5 kaliya joojisay laakiin hadda waxa la sheegayaa Canada in ay furmi doonto bilaha soo socdo haday noqoto group 5 haday noqoto qaxooti haday noqoto xitaa xuduuda Canada waa la furayaa warbixinta maxallahay waa warbixin xaqiiqa insha Allah biidnillah fursadaasna maxallahay dadka qaxootiga ayaa ka faa'iideysan doono dadka qaxootiga oo hadda Mareykanka uu soo tarxiil rabo xitaa waxa laga yaabaa Canada inay qaabisho ee sharciyo siiso soo Canada maxallahay waxay u baahan tahay shaqaalooyin xadka bax ah marka yani qaxooti abad ugu badnaa yani Mareykan hadda sida loogu tahriib waa aragteen sidaas ka daran ayaa Canada loo gali doonaa insha Allah biidnillah laakiin qaxootigana way qaabili doontaa oo ma soo celin doonto hadii ay noqoto maxallahay qaxootiga oo ay qaadanayso processka ama kuwa tahriibayaasha ah ama kuwa visa xitaa Canada waxa la sheegayaa in ay visa yani aqoon ay ku xiri doonin shirkadaha dadka ay qaadanayaan muhiim ma ahan aqoon يعني aqoon in aan leedahay oo waxbarasho heer sare ah soo martay muhiim ma ahan muhiimada kaliya waxay u baahan yihiin shaqaalo soo marka fursadaas ka faa'iideysta yeysan idin dhaafin insha Allah biidnillah videogan meel dheer gaarsiiya